qaadashada kaarka codbixintu waa furaha qabsoomida doorasho xor iyo xalaal ah. Sidaa awadeed qof walba waa inuu ogaado kaarkan codbixinta ee hadda la qaybinayo waa kaarka suuro gelinaya doorasho kasta inuu qofku ku codeeyo. Hadday tahay ta madaxtooyada, hadday tahay ta wakiilada iyo hadday tahay ta golaha deegaanka intaba. Sidaa awadeed qof walba waa inuu ku dadaalo inuu qaato kaarkiisa codbixinta muddada ay ka socoto gobolkiisa ama degmadiisa. Haddii ay dhaafto waqtiga loogu talagalay, hadhow ma saamixi doonto qof kasta inuu helo kaarkiisa codbixinta. Fursaddu hadda ay jirtaa waxa uu suurtageli doonta marka qof walba inuu maalinta doorashada si dhib yar u codeyn karo isagoo codkiisa u dhiibanaya si xor iyo xalaal ah. Marka muwaadin qaado kaarkaaga codbixinta si aad u hesho xuquuqdaadii codbixinta. waxaan ku ganaadinayaa muwaadin ha dayicin xuquuqdaada. Kad ku doonaysa madaxweyne wanaagsan, kad ku doonaysa xildhibaan wanaagsan oo wakiilka kuu noqda, kad ku doonaysa deegaan wanaagsan oo wada kuu dhisa oo qashinka kaa gura. maanta waa xabadda waa rasaastaadii. rasaasta qof dagaal galo bilaa rasaasi soo maaha la qabsan maayo. rasaastiin way codkani maanta waa inaad qaadataan muwaadin. taasaan ku koobaabinaya, taasaa dad isku hiilin kartaan, taasaa siyaasiyiinta kaga adagtiin. maanta waa maalintiini, ha dhaafina maanta waqtigiina iska luminina. waxaanu u soo jeedinayaa dhammaan dadweynaha muwaadiniinta reer Somaliland inay qaataan kaararka oo qof waliba ku faraadeeyo kaarkiisa si uu hadhow too codeeyo. qofka maanta codeyn qaadan waayo kaarka ama dayaca waxa suurtagal ah inuu lumiyo xuquuqdii ku lahaa inuu doorto qofka uu doonayo. qof walba muwaadin uu xaq u leeyahay qofku doonayo iyo xisbiga uu doonayo inuu codkiisa u rido. waxaase ka horeysa inuu qaato kaarka. waxaan ugu baaqayaa shacbiga degan goboladan Maroodi Jeex, Togdheer inay qaataan kaararka codbixinta waqtiga loogu talagalay, commissionka ugu talagalay inay ku qaataan. waan soo jeedinayaa si aanay u waayin xuquuqdooda ah inay codeeyaan oo cidda ay iyagu markaa doonayaan ay doortaan. hadday tahay madaxweyne, hadday tahay baarlamaan, hadday tahay golo deegaan.